munaasabada ciidul fidriga awgeed ayaa waxaa salaadii ciidul fidriga la tukaday dadweynaha ku nool magaalada Boorama wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abukar iyo agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Muuse Muriid sidoo kale waxa iyaguna maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo barasaabka gobolka Awdal iyadoo salaada ciidul fidriga lagu tukaday qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay degmada Boorama takbiirtii salaada ciidul fidriga laga bilaabay deegaanada kala duwan ee degmada Boorama takbiirta afartii subaxnimo iyadoo laga maqlayay daafaha kala duwan ee deegaanada degmada Boorama iyo nawaaxigeeda sidoo kale waxaa salaadaasi laga tukaday degmooyinka kala duwan ee gobolka Awdal degmada Dila Baki Lughaya iyo Qunujeed iyadoo deegaanadaasina ay dadweynaha salaada kala qayb galeen mas'uuliyiinta kala duwan ee degmooyinkaas xukuma munaasabadaasina waxa ugu horeyntii ka hadlay Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar sheekh beledka magaalada Boorama mar labaad dib ugu noqonayaa ku baraarujinaya walaalayaal ciidaha muhiimadooda ugu weyn waxa weeye marka maalintii 5 salaadood hal isku yimaado la yiraahdo haddana usbuucii jimcaha hal isku yimaado haddana sanawi hal isku yimaado in dadka ummaddu ka tashadaan danahooda adduunyadooda iyo aakhiradooda labadaba inay ka tashadaan sidoo kale maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaan doonayaa wax kasto wanaagsan oo la sheegayo inaynu sheegno maanta haddaba walaalayaal maanta oo kale waad ogtihiin sida aynu wanaagga u jecelnahay wax kasto wanaagsan inaynu u jeclaano inuu degmadeena iyo dalkeena iyo dawladdeena qorxino ilaahay ummadda Nabi Maxamed u xidhantaha u naxariisto ilaahay inagana ha nooga daba naxariisto waa maalin farxadeed cid uuna haddii ay wax caloosha isku hayeen waa goobaha loogu talagalay in la isku saamaxo oo meelaha la isqooroqoreeyo oo la arko dadkii qof kasta oo wax ka dhaxeeyay ama laba kasta wax ka dhaxeeyeen in la saamaxo farxad la iskala soo horbaxo waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan ciid mubaarak waraan saamaxno horta waa يوم الفرح والله isxamanay hoos baa wax la isulaa waa la isku yar ciirayay wax kasta waa dhaca bilaadan baynu lama waayo hal la saamaxo marka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay hore anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan idin soo gudbinayaa hambalyo iyo tahniyad ciid barakaysan ciidul fitri waxaan idin leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahina waxaan weydiisanaynaa inuu acmaasha aynu sameeynay bishii Ramadaan soomkii iyo quraan akhriskii iyo taraawiixdii tahajjudkii iyo cibaadadii kale ilaahay naga aqbalo inuu ilaahay soomkiisa nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo nabad iyo horumar inta kadib hadal badan uma kicin Sheekh Cabdilaahi mar hadduu hadlay kadaba hadalkeedu waa qaldan tahay laakiin saddex qodob baan ka hadlayaa waa koow Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu ka soo hijrooday Makka ee Madiina yimid saddex talaabo oo waaweyn buu qaaday oo dawladnimada la xiriirta markii uu rasuulku Nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii ugu horreeyay uu sameeyay waxay ahayd inuu dhisay masaajidku marka hadaad dib ugu noqoto taariikhda islaamka wuxuu u dhigmayay dhammaan wasaaradaha imigana waa leenahay waxbarasho caafimaad horumar difaac garsoor ilaalinta deegaanka xiriirka caalamiga halka laga maamulo masaajidka marka horumarka ummad waxa ugu horeeya in la dhiso muassasaadka ama waxa la yiraahdo hay'adaha dawladda waxaan arrinka u soo qaaday waxa weeye islaamku isaga inoo jideeyay habkaynu u noolaanayno oo ah inaanu samaysano institutions ama hay'ado waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama